casharka labaad akhrinta khariidada. Khariidadu waxa ay bixisaa xog ku saabsan jiritaanka meelaha iyo fogaanta u dhexeysa sida meelaha dadka degan yihiin, wadooyinka, webiyada, dhismayaasha, dhirta, harooyinka iyo wixii la mid ah. Khariidadu waxa ay kaloo muujisaa kala duwanaanshaha dhulalka, dhererka dabiiciga ah iyo inta ay la-eg tahay daaqsinteedu. Khariidadu waa qalabka ugu muhiimsan ee juqraafiga. Khariidadu waxa ay matalaysaa dhulka oogadiisa oo dhan ama qayb ka mid ah oo ku sawiran qiyaas. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo khariidado ah. Nooca khariidada aad rabtid waxa ay ku xiran tahay sabab aad uga baahan tahay. Haddii aad isku daydo in aad heshid wadooyinka ama dhismayaasha magaalo aad ku nooshahay, waxaad u baahan doontaa khariidad muujinaysa dhammaan jidadka yaryar. Haddii aad ku socoto xadka buuraha, waxa aad u baahan tahay khariidad muujinaysa aag weyn oo dhulka ka mid ah oo kuu sheegaya dhererka dhulalka iyo buuraha dushooda. Ahmiyadda khariidada. Calaamadaha khariidada iyo qaababka loo sharxay. Khariidada. Calaamado ayaa sharxa. Khariidaduhu waxa ay leeyihiin calaamado muujinaya halka ay yaalaan wax walba. Khariidaduhu waxay leeyihiin calaamado la doortay. Sidaa daraadeed, khariidaduhu ma aha in ka mid ah in lagu qoro qoraallo oo calaamadahaasi ayaa fure u ah. Calaamadaha, muuqaalada iyo midabada way ku kala duwan yihiin, waxa ayna ku xiran yihiin nooca khariidada iyo qoraaga. Waxaa jira calaamado badan oo lagu muujiyay khariidadaha sida garoon diyaaradeed, meelaha baabuurta la dhigto, taleefoonada. Khariidadaha ayaa sidoo kale yeelan doona muuqaalo kala duwan. Geedaha oo lagu muujiyay midab cagaar ah, badaha, webiyada, harooyinka, togagga iyo durdurrada intaba waxaa lagu muujiyay midab buluug ah. Dhismayaasha waxaa lagu muujin karaa midab yaryar oo madow ah. Dhismayaasha qaarkood waxa ay leeyihiin calaamado gaar ah sida masjidyada, isbitaalada iyo dugsiyada. Mid kasta oo ka mid ah dhismooyinkaas waxa uu noqon karaa dhul muhiim ah, kaas oo kaa caawinaya inaad si fiican u gaarto khariidad. Calaamadahan waxa ay tilmaamayaan waxyaalaha ay kala duwan yihiin: masjid, isbitaal, dugsi, goob muhiim ah, dhismooyin taariikhi oo burburay, wado weyn oo muhiim ah, wado meel dhexaad ah, wadooyin yaryar ee aan lahayn. barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo. barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo. gajiya u bakhtiya basaasto duntiisu ka badiyo bulaanye. bartaan wax bartaan wax bartaan bartaan barwaaqo gaarane.